السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب ما توحى بلاويها برنامج امتحان أحد دونه برنامج خاص أو سيدا عاد محلا امتحانك وقول سلحيد أما وحيابها عاد محلا سمي لحيد حلقة امتحانك وصولو بيها برنامج محكس ديار دونا قيوب بدن ما توحى بلاوي دونا قيب تشي كواد sidaan hore ugu sheegay maanta waxaan bilaabi doonaa barnaamijka qaybtiisa koowaad anagoo qaybo badan kasoo diyaarin doona qodobka koowaad sameyso jadwal haddii aad sameysid jadwal ha ku dhajin meel aadan arki karin ama meel aadan inta badan arki karin ku dhaji meel aad maalin kasta arki kartid taas waxay ka qaadanaysaa inaad maalin kasta aad aragtid oo aad imtixaanka diyaarisid laakiin haddii aad ku dhajisid meel aadan arki karin waxaa laga yaabaa inaad ilowdid oo hodhowna imtixaanka asaas ku ilowdid waa inaad ku dhajisaa jadwalka meel aad arki kartid maalin kasta maado kastana aad ku qorid saacad ama waqti aad diyaarinaysid oo aad waqtigaas aad diyaarisid maalin kasta qodobka labaad qaado nasasho joogto ah mar kasta oo aad wax diyaarisid qaado nasasho joogto ah nasasho waxay ka qaadanaysaa in qofka wax badan fahmo haddii aad hadda diyaarisid cashar xooga ah u dhaxaysay nasasho aad u tiro badan laakiinse nasashadaas ha noqoto mid aad xooga waqti ah kabacdina aad meesha kasii wadatid akhriskaga haddii aad wax akhrinaysid ha ku dheeraan akhriska oo maanta oo dhan ha akhrin oo u dhaxaysay nasasho aad u tiro badan qodobka saddexaad qorshayso imtixaankaaga wax ka wadaa inaad qorshaysid imtixaanka xilliga geli lahayd shuruudaha imtixaanka iyo meelaha inta badan is leedahay imtixaanku ka imaanaya inaad si fiican u diyaarisid qodobka afraad ka shaqee imtixaanadii hore imtixaan waxa laga yaabaa inaad hadda imtixaankan ku socdo imtixaan ka horeeyay aad gashay marka imtixaankii ka horeeyay dulmar ama akhri ama ka shaqee intii aadan ka shaqeyn ama ka khaldamin taasna waxay ku saalaysaa inaad imtixaanka ku guulaysid ama aad ka keentid meel aad u sareysa sababtoo ah waxa laga yaabaa in imtixaanka aad maalinta hore gashay iyo kan xooga isoo shabahan oo intii aad diyaarisid kabacdi intaas kale lagu keeno maanta barnaamijka qaybtiisa koowaad inta ay kusoo gabagabeynaya haddii aad channelka cusub tahay ha ka ilaaw inaad subscribe ku sameysid sidoo kale aad videogan like saadid u sii sheegaysa asxaabtaada u baahan in imtixaanka ku guulaystaan intaa ku kulmana kuwanta daba xiis leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guulaysta